هاي قيارتن soo dhawaada muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa magaalo aad u qurux badan. magaaladan waa magaalo wada cagaaran waxayna leedahay geedo aad u dhaadheer waxaana sidoo kale ku yaalo webiyo. waxaa wadada dhinaceeda lagu heynayso gabar aad u qurux badan wayna istaagaysaa waxayna la soo baxaysaa taleefan. waxaa isla markii uu imaanayso gabar saaxiibadeed ah waxayna u soo kaxaynaysaa xafladaas oo ka dhacaysay guri. gabartii waxay keeni doontaa guriga ee ka dhacaysay xafladda. waxaa halkaas isku imaaday oo xafladda ku dhiganayay dhalinyaradan oo ah kuwo iskuul ah dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo marayaan iskuulka sare. waxaa meesha ka dhacaysay xaflad aan caadi ahayn waxaana la shiidanayay heesaha ugu dambeeyay ee soo baxo sanadkan. gabartii saaxiibadeed waxay u sheegi doontaa xafladda inay ka heshay in kale waxayna ku dhici doontaa xafladan waa xaflad qurux badan. kaleeri waxay ku dhici doontaa wiil xafladda joogay. wiilkii xafladda joogay waxay ku dhici doontaa iga raali noq laakiin asiga ma maqlaynin. waxaana ka tan badnaay hadalkeeda muusikada ka shineeday meesha. labadooda waxba isku sheegayaan laakiin si fiican isku maqlaynin. isla markii waxa imaanayo gaygan saaxiibkiisa. wiilkii wuu cararaya wuxuuna tegayaa maslaxa asigoo iska dhigi doono inuu heesayo. wiilkan wuxuu ahaa mid iska kaftan badan wuxuuna iska sameynaya waxyaabo iska fani ah. kaleer wuxuu tegaysaa gabartii saaxiibadeeda waxayna ku dhici doontaa wiilkan magaciis. kaleer gabartii saaxiibadeeda waxay ku dhici doontaa wiilkan magaciisa waxaa la dhahaa Iidan wuxuu u imaan doonaa kaleer asigoo sameyn doono waxyaabo qosol ah. Iidan iyo kaleer way isla ciyaari doonaan. Iidan wuxuu lahaa shakhsiyad la jeclaan karo wuxuuna ahaa qof iska furfuran asiga. Iidan kaleer wuxuu ka codsanayaa in isku soo raacaan banaanka waxayna soo aasanayaan dukaan lagu gado macmacaanka waxayna halkaas ku dhaxmarayo sheekooyin aad u fara badan waxayna ka sheekaysanayaan labadooda iyo waxyaabaha ku saabsan. Iidan iyo kaleer waxay kasoo tegi doonaan dukaankii lagu gadayay nanaca waxayna hadda isla lugeynayaan wadada. waxay markale ka sheekaysan doonaan waxyaabo ee ku saabsan. Iidan wuxuu u sheegi doonaa kaleer inuu jecel yahay asiga muusikada wuxuuna u sheegi doonaa inuu galayo iskuul muusikada lagu barto laakiin wuxuu u sheegi doonaa waalidkiis inay xiiseenin muusikada wuxuuna ku leeyahay waalidkii waxay la jecel yihiin inaan noqdo dhaqtar. kaleer waxay dhihi doontaa waalidka wax kasta waa ka dhaadhici kartaa u sheeg si jawi degan ugu sheeg waxaana ku dhahdaa waxaan jecelahay inaan ka baxo iskuul muusik ah. isla markii waxay arkayaan meel ee taalo wiifo ama leexo waxayna soo aasanayaan wiifowgii. labadooda waxay fuulayaan wiifowgii waxayna halkaas ku qaadanayaan waqti ayagoo sheekaysanayo mar kale. kaleer Iidan waxay u sheegi doontaa markay dhammayso iskuulka inay aasi doonto jaamacad een u aasi doonto dalka dibadiisa. waxayna ku leedahay waxay la jeclaadeen waalidkayga inay jaamacad u aasto dibadda waxayna ku dhihi doontaa sidoo kale anigana waan jeclaa inay jaamacad u aasto dibadda. waxay u sheegi doontaa oo kale inay hooyadeeda jeceshahay iyada waxayna dhihi doontaa wax kasta oo aad dhaho igama diideyso aniga hooyadeeda. waxay u sheegaysaa iyada inay hooyadeeda guursatay mar dhow nin waxayna leedahay magaciisa waxaa la lahaa Steve. waxayna u sheegi doontaa hooyadeeda iyo aabaheeda inay kala tageen waqti hore waxayna ku leedahay aniga ma rabi inaan sameeyo hooyadeeda waxay sameysay camal mana rabo inaan kala tagno qofka aan mar isguursano waxaana jecelahay qofka isguursano inaan nolosha isku dhamaysano. labadooda waxay kasoo dhici doonaan wiifowgii waxayna kusoo dhacayaan dhulka. waxay iska bacdi waxaa imaanaya roob waxayna soo qaadanayaan dalad waxayna soo aasanayaan xaafadda. kaleer iyo Iidan waxay naqanayaan laba qofood oo aad iskugu dhow waxayna isla markii abuurayaan jacayl midba midka kalena wuu ka helay. Iidan wuxuu isku dayi doonaa kaleer inuu dhunkado laakiin iyada ayaa ka diidi doonta waxayna ku dhihi doontaa aniga ama qalbigayga dhaawacda hadhuufti haddaa kuu soo dhawaado. waxay u sheegi doontaa wiil ay isla socon jireen kuleejka laakiinse wiilkaas uu ka tegiyey wuxuuna ka jebiyey iyada qalbiga. Iidan wuu fahmayaa wuxuuna ku leeyahay wiilkaasi aniga isku mid manihin mana laga yaabo inaa kaa tago oo nolosha kugu cidleeyo. hadalkaas waxaa ku farxayso kaleerna waxay noqonaysaa qof Iidan jecel galay. kaleer isla markii xaafad timaado waxay wacaysaa Iidan iyadoo taleefon kula hadli doonto Iidan. habeenkii ku xigay waxay u imaanaysaa kaleer oo heesayo asigoo ku heesayo wadada. Iidan way u sabci doontaa waxayna dhiirigelin doontaa kaleer. waxay isla qaadan doonaan waqti waxayna soo aasi doonaan meelo dalxiis ah. kaleer iyo Iidan waxay imaanayaan meel ay ka shidan tahay muusik labadooduna waxay ku ciyaari doonaan muusigaas waxayna u ciyaarayaan si aan caadi ahayn. kaleer iyo Iidan waxay noqdeen laba qofood oo isku faraxsan waxay sameyn doonaan xasuus waxayna isla socdeen 4 bilood Abriil, May, June, July iyo August in 4taas bilood ugu dhigneeday 4 sano ee isla socdeen. waxaa la gaaray qalin jebinta iskuulka kaleer waxaa dhiirigelinayo oo u imaanaya Iidan wuxuuna la qaadanayaa xafladda waxayna soo aasanayaan markii xafladda dhamaato dabaal waxayna ku dabaalanayeen haro. sidoo kale kaleer wuxuu usoo wadayaa Iidan meelo ugu baashaalo wuxuuna soo raacayaan doonta waxaa waday kaleer saaxiibkiisa waxayna saarnaayeen eeka gadaal waxaana lagu jiidayay badda. habeenkii Iidan wuxuu samaynayaa kaleer xaflad wuxuuna u ridayaa buleer qalin jebinta iskoolkeeda. kaleer waxay u imaanaysaa saaxiibadeeda waxayna u sheegaysaa inay ilaawday iyada waqtigeeda waxayna leedahay waqtigeeda dhan waxa ku bixiyay Iidan waxayna ku leedahay waan is ilaawa aniga waxaan aad u jecelahay Iidan. kaleer saaxiibadeeda waxay u sheegaysaa inay haysan waqti fara badan waxayna u sheegaysaa waqtiga jaamacadda u bilaabin lahayd in la gaaray. kaleer saaxiibadeeda waxay u sheegi doontaa inuu saaxiibkeeda jibiyay qalbiga waxayna u sheegi doontaa inay iska dhaafto wiilashan sanadkan jiro waxayna ku dhihi doontaa waxbarashadaada lee ka fikir ha ka fikirinin. sidoo kale kaleer waxay diyaarsanaysay dharkeeda waxayna isku diyaarinaysay jaamacadeeda. kaleer waxay bilaabaysaa inay samaysato jadwal iid u qaas ah waxayna ku leedahay haddaana samaysan jadwal waxaa waqtigeyga oo dhan ku bixinayaa Iidan. isla waqtigii waxa uu imaanaya Iidan oo wado ubax. Iidan wuxuu diyaarinayaa macsalaamayska kaleer wuxuuna geenayaa
xaafadiisa wuxuuna soo barayaa hooyadiisa iyo aabihiisa sidoo kale wuxuu barayaa Ethan walaashiisa Ethan iyo Claire waxay la qadeynayeen familka Ethan waxayna halkaas ku qaadanayaan waqti markay dhamaato qadadii iyo xafladii Ethan wuxuu gaari ku soo kaxeynayaa Claire waxayna u sheegi doontaa Claire inay jeceshahay Ethan wuxuu ku dhigi doonaa waxa tahay dunideeda Ethan iyo Claire waxay imaanayaan xafladaas ay waxay joogeen fanaaniin laakiin fanaaniinta ay wuxuu ku codsanayaa Ethan inuu hayso Ethan heestiisa ugu horeysay wuxuu ku diyaarinayaa erayo oo ku amaanayo Claire waxay dhageysanaysaa erayada macaanta badan oo ku heesayo Ethan markuu dhameeyo heesta uu soo degi doonaa waxayna isla ciyaari doonaan Claire waxayna halkaas kaga duubi doonaan sawiro xasuus ah noloshooda waxay ahayd mid aad u qurux badan Claire markay timaado xaafadda xitaa waxay jeceshahay inay la hadasho Ethan waxayna wacaysaa Ethan alintii kale waxay isla su'aasanayaan magaalada Ethan iyo Claire waxay imaanayaan meesha lagu ciyaaro geemka Aska Hawk waxayna loo gashtaa halkaas kabahaas oo ah kuwa taraaraxayo waxayna u galayaan halkaas gudaha Claire waxa la marayaa waqtigeeda ugu dambeeyay waxaan u bilaabanayso jaamacadeeda waxayna rabtaa inay waqti la qaadato Ethan waxa ku soo dhacayo fikrad wuxuuna keenayaa dharkan oo ah kuwa ay juku gaarin hataa ku dhacdo dhulka labadoodu waxay sameynayaan waxyaabo fani ah waxayna ku taraaraxayaan dhulka ayagoo dhulka jiifanayo labadoodu waxay siinayaan hab waxayna ahayd waqtigii ugu dambeysay ee isiyaan labadooda hab Ethan wuxuu ku dhigi doonaa Claire haddaad iga dheeraatay maahan micnaheeda inaan kala tagnay waxaan isla soo xiriiri doonaa waqti walbo Claire iyo Ethan waxay ka faa'iideysanayaan waqtiga yar ee haystaan waxayna soo raacayaan doon sidoo kale Claire wuxuu u keenayaa katiinkaas oo ah katiin ay jeceshahay iyada sidoo kale waxay sameynayaan maalin kale in lagu jiido doon waxaana ku jiidaya sida caadadaheeda saaxiibkooda Claire wuxuu ku dhigi doonaa waqti walbo sidaan igula joog hana iga tagin Claire iyo Ethan ayagoo saaran doontii la jiidayay ayaa hal mar waxay ku dhici doonaan badda labadooda waxay ku qarsoomi doonaan badda laakiin waxaa dib u heli doono saaxiibkooda Claire Ethan waxay u sheegi doontaa inaan wiligeed arkin qof asiga camal ah waxayna dhigi doontaa waxa tahay qof leh shakhsiyad wanaagsan waxaana tahay qof ka samaysan farxad waxaana tahay farxadii oo lugeynayso Claire wuxuu u soo wadayaa meel uu ugu sameeyay xaflad wuxuuna u diyaariyay miis qurux badan miiskaas wuxuu ku diyaariyay sidoo kale sawiradaas oo ah kuwa isla galeen labadooda Claire waxay soo baxsanaysaa taleefankeeda waxayna wacanaysaa saaxiibadeeda waxayna ku leedahay waxaan joogaa meeshaas ee iimaaw Claire waxa meesha ku qabanayso cidlo waxayna niyeysanaysaa kuraasta kale oo fadhido asxaabtaas oo iyada leh ah waxayna isla hadlaysaa iyada leh waxayna isku dhihi doontaa wiilkan waa wiil aad u wanaagsan ha ka tagin jaamacad iska dhaaf oo iska joogo halkaaga laakiin waxa mar kale fadhido dhinaceeda iyada leh taas ayaa ku dhihi doonto waxbarashada iska aaso qoftan way isla hadlaysay waxa isla markii albaabka soo galayso Claire saaxiibadeeda Stella Ethan ayaa imaanayo isla markii wuxuuna weydiin doonaa qofka wacay qoftan wuxuuna ku dhihi doonaa adiga ma wacay Stella Ethan saaxiibkiisa ayaa isla markii wuxuu keeni doono keeka afartooda waxay ka wada cunteen doonaan halkaas Claire waxay u sheegi doontaa dhammaantood inay jeceshahay waxayna dhihi doontaa macsalaama dhammaantiin waxa ku soo dhacay Claire fikrad waxayna ku dhihi doontaa isla cawada ayaa waxa soo qaadan doonaa waqti waxaana aasan doonaa iskuulkeena waxayna ku dhihi doontaa waxaan tegaynaa iskuulka Stella iyo waxa dheelayay Ethan saaxiibkiisa waxa dhan kale ku sheekaysanaya gaariga dhexdiisa Claire iyo Ethan ay soo gaarayaan iskuulka waxayna jabinayaan albaabka iskuulka waxayna gudaha u galayaan iskuulka waxa cusubtay in iskuulka la imaado Claire waxayna rabtaa inay waqtigeeda ugu dambeeyay iskuulka ay soo aragto asxaabtii waxay soo galayaan iskuulka waxayna waqti ku qaadanayaan iskuulka ayagoo imaan doono fasalada wax ku qaadan jireen afartooda waxay imaanayaan meel ay ku ciyaaraan meeshaas oo ku sawiran gacan Stella iyo Ethan saaxiibkiisa waxay iskaga tagaan meesha waxayna Jani siinayaan ay ku sheekaystaan Claire iyo Ethan ayaa halkaas ku sheekaysan doona mar kale waxayna ka sheekaysan doonaan noloshooda iyo mustaqbalkooda waxay isweydiin doonaan markii ugu horeysay gurigooda waxayna dhihi doonaan markaa jaamacad soo dhamaysto miyaa isguursanaa mase jaamacadda adigu dhiganaysid laakiin Claire ay waxay ku dhihi doonto inaan noogu dhigtay markaa jaamacadda aan soo dhameeyo Claire saaxiibteeda Stella ayaa waxay taabanayso gambaleelka iskuulka waxaana halkaas ka soo cararayo oo ka soo baxsanayo afartooda iyadoo la kala cararayo Ethan ayaa wuxuu ku dhacayo dhulka waxaana ka jabayso gacanta waxaa loo qaadayaa Ethan cisbitaalka la daaweynayay gacantiisa xaaladaas waxaa la joogtay Claire waxayna u muujinaysay garab istaag Ethan waxaa loo soo kaxeynayaa xaafadda laakiin wuxuu ku seexanayaa korka Claire waxay akhrisanaysaa waqtigaas buug Ethan hooyadiisa waa dhakhtar waxayna qaysaa cisbitaalka lagu daaweynayo Ethan waxayna soo booqanaysaa Ethan xaaladiisa sidana qatay laakiin waqtigaas waxaa jooga halkaas Claire dhanka kale waxa arkaynaa cisbitaalka banaankiisa oo ku sheekaysanaya Stella iyo Ethan saaxiibkiisa waxaan u maleysaa labadan qofood in isku soo dhawaadeen ay noqdeen saaxiibo Claire waxay macsalaamayn doontaa Ethan hooyadiisa waxayna ku dhihi doontaa waxa la gaar waqtiga bixi lahaa ee macsalaamo Ethan hooyadiisa ayaa u mahadnaqayso waxayna ku leedahay waxa tahay gabar aad u fiican waxa fiicnaanayo Ethan waxaan la soo wada aasanayaa habeen kale iyo xaflad Stella iyo Claire waxay siinayaan hab waqtigooda ugu dambeeyay waxa xafladda ku kala mashquulayo Claire iyo Ethan Claire waxay macsalaamaynaysaa dad far badan oo jooga xafladda Ethan waxa la tagayso xamaasadda xafladda wuxuuna is ilaawiyaa wuxuuna fuulayaa maslaxa Ethan wuxuu ka sheekeynayaa xiriirkooda wuxuuna ku dhahayaa waxaan labada qofood oo adduunka ugu farxadda badan wuxuuna ka sheekeynayaa heesta u sameeyay iyada laakiin kuma faraxsaneen Claire Ethan inuu
fulo halkaas oo waxaas sheego. Iidan wuxuu dareemayaa in Clear ay ku faraxsaneen wuxuuna weydiinayaa su'aalo laakiin su'aalaha uma jawaabayso. Iidan wuxuu kasoo deganayaa masraxii asigoo xanaaqsan wuxuuna soo aasanayaa xafladii meesha lagu dhigayo qolal kamid ah. isla markii qolkaas waxa uu soo gelayso Clear. Iidan wuxuu ku dhihi doonaa Clear waxaan kuu sameeyay wax walba waxaana ku siiyay farxadii ugu darneed laakiin waxay ka jabisay qalbiga waxaana ku ceebaysay dadka hortooda. Clear ayaa wuxuu u sheegi doonto Iidan inay waxaas ahayn wax jirin waxayna u sheegi doontaa noloshooda inay qurux badan tahay inay u ahaato mid bareefad ah waxayna ku dhihi doontaa maxaa naga galay waxyaabaha ku saabsan in uu sheego dadka. Iidan oo xanaaqsanaa wuxuu dhihi doono waxa hadlaysaa si aan caadi ahayn waxaana ka muuqdo kibir aad u fara badan. labadoodu waxay is dhaafsan doonaan hadallo qalafsan waxaana Iidan ku dhihi doonaa nolosheena halkan ay ku soo dhamaatay iska ilaaw jecelkeena wuxuuna ka tagi doonaa Clear. Clear waxay ka soo bixaysaa xafladda waxayna wacanaysaa hooyadeeda. hooyada ay waxay ku soo qaadayso gaari waxayna u sheegaysaa wax kasta waxayna u sheegaysaa inuu ka tagay Iidan. hooyada waxay ku dhihi doontaa Iidan wuu ku jecel yahay mana ka tagayo. Clear hooyada waxay keenaysaa guriga laakiin habeenkii oo dhan muurdayso Clear. habeenkii oo dhan waxay fiirinaysaa taleefankeeda waxayna baaraysaa taleefankeeda inuu soo diro wax message ah Iidan. Clear waxay soo xasuusanaysaa Iidan habsiintiisa iyo dhunkashadiisa. Clear waxay isku gidgidinaysaa sariirta waxayna ka walwalaysaa Iidan. Clear sidoo kale habeenkii oo dhan waxay ku socotay qolkeeda waxayna soo qaadanaysaa xasuusiyo ugu tagay Iidan. Clear waxay go'aansanaysaa inay u dirto message-kii ugu dambeeyay Iidan waxayna ku raali gelinaysaa message-kaas. ugu dambeyntii waxa uu maanayo Iidan. Clear Iidan waxay u sheegi doontaa inay dareentay waqtiga yara oo ka maqnaay cabsi aad u fara badan waxayna ku leedahay waxaan dareemay nololtii ugu xumeeday waxayna ku dhihi doontaa hayga tagin mar kale hana ay cidlaynin. habeenkii waxay sila aasanayaan haro waxayna ku soo dawaalanayaan haradaas eeko harada ku dawaalanayo waxa ku soo bixayso qoraxda subaxdii. waa hagaag subaxdii ku xigto waxaan arkaynaa Clear iyo Iidan oo ku wada cunteynayo sariirta Clear. Iidan wuxuu u sheegi doonaa riyadiisa inuuna bedelin wuxuuna u sheegi doonaa inuu maalmaha kamid naqanayo fanaan caan ah. Clear ayaa wuxuu ku dhiirigelinayso fikirkiisa oo jecel yahay asiga waxaana ku leedahay maalin waa gaari doontaa riyadaas. subaxdii waxaa baxayso Clear waxayna macsalaameynaysaa Clear Stella oo ah saaxiibadeeda. sidoo kale Clear waxay macsalaameynaysaa Iidan oo ah saaxiibkeeda. Clear waxay ku dhihi doontaa ha ii gelin mar kale sida camal waxayna ku dhihi doontaa hadaa kala fogaano micnaheeda maahan inaa kala dheeraanay waxayna isii doonaan hab waqtigooda ugu dambeeyay. Clear Iidan waxay u sheegi doontaa inayna jeclayn inay ka tagto asiga laakiin waxay u sheegi doontaa inay aasanayso mustaqbalkeeda iyo waxbarashadeeda. Clear waxay aasanaysaa iskuulka halkaasna waxay ku baranaysaa asxaab fara badan. waxaa arkaynaa dhanka kale Iidan oo asigana riyadiisa u rumowday wuxuuna galay iskuul lagu barto muusigada iyo fanka. labadoodu waxay isku soo dirayeen sawiro iyo message waxayna ka sheekaysanayeen internetka noloshooduna waxay kasii socotay halkaas. ugu dambeyntii waxay kulmayaan waqtiyada fasaxa ee jaamacadaha labadooda waxaana ahay filmkeena qiso dhab ah wuxuuna ku egyahay halkaas. hadaa jecesha inaad soo badan filimada noocan camal oo qisooyinka ah muuqaalkan like saar channelka hadaa ku cusubtana subscribe saar. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.